رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومركل Abdisalam Akhiil oo maanta rabo inuu idin la wadaago sida window bootble aad ugu shubi lahayd flashka. sidoo kale waxaan anagoo isticmaalayna applicationka lagu magacaabo power ISO. ugu horeyn flashka waa inuu eber ahaadaa, kadib waxaa imaanaya halkan ay ku qoran tahay applicationka ayaa soo furanay power ISO. halkan ayuu ii yaalaa applicationka. marka aad soo furato then waxaan ka dooranaya halkan ay ku qoran tahay continue and register. kadib halkan open ay ku qoran tahay ayaa ku dhufanaya. markaad ku dhufato impossible ayuu ii yaalaa in windowga isagoo ISO ah. waxaana rabaa inaan USB aan ku shubto. USB-gana marka aad ku shubanayso waa inaa u isticmaashaa applicationka lagu magacaabo power ISO. Windows 10 iraadi halkana windowga isoo fur then open markaa dhahdo halkan waa ujeedaa inuu bootble image yahay, waa inuu ku ahaada bootble image. then waxaa imaanaya halkan ay ku qoran tahay tools. waxaa kasii dooranay create bootble USB image, then okay ayaa leedahay. kadib halkan yes ku qoran tahay ayaa ku dhufanay. markaad ku dhufato wax yar ayaan sugay continue and register ayaa ku dhufanay. then markaad ku dhufato halkan inboxkan ayaa imaanay. waxaa kasii dooranay windowga aragtida ka dooranay data USB drive inay ku ahaataa, halkan waa HDD inay ku ahaataa, then start ayaa leedahay, then okay ayaa ku dhufanay. xoogaa waqti ayuu qaadanayaa, marka waan sugaynaa ilaa daqiiqatayn. uu socdaa wax yar ayaa inoo dhiman wuu dhamaan rabaa. markuu dhamaado waxaad arkaysaan in windowgi uu ku shubmay flashka, lagu shubi karo ama lagu dhaqi karo computer waliba, computerku doona ha ahaado. 99 ayuu marayaa. wuu tagay okay ayaan ku dhufanaynaa. wuu inoo dhamaaday. hadda waa ujeedaa in windowga aad flashka doonta aad ku shuban karto. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل